Soomaaliya waxay gashay xilli doorasho waana doorashadii saddexaad ee lagu qabto dalka gudihiisa burburkii kadib. Doorashooyinku waxay ka soo bilowdeen xulista guddiyada doorashada heer federaal iyo heer maamul goboleed, ayadoo la soo dooranayo xubnihii labada aqal ee ka kooban isku darkooda 329 xubnood, aqalka sare oo ah 54 senatar iyo aqalka hoose oo ah 275 xildhibaan. waxaana doorashadaasi lagu bilaabaa soo doorashada aqalka sare. baarlamaanka maamul goboleedyada ayaa soo doorta xubnaha ku matali lahaa aqalka sare maamul goboleedkaas. Somaliland 11 senatar, Puntland 11 senatar, Galmudug 8 senatar, Hirshabelle 8 senatar, Koonfur Galbeed 8 senatar, Jubbaland 8 senatar. 54 xubnood ee la soo doortay ayaa fadhiista aqalka sare oo ku dhisan matalaadda maamul goboleedyada. intaasi kadib waxaa loo gudbaa doorashada aqalka hoose, waxaana bilowma xulista ergooyinkii dooran lahaa xubnaha baarlamaanka aqalka hoose. hannaanka xulista ergada ayaana ah hannaan ay xubnaha bulshada rayidka ah iyo odayaasha qabaa'ilku ay ku wadaagaan xubnihii ergadii dooran lahaa kursiga xildhibaankooda. tirada ergada ayaana ah 101 halka ay ahayd 51 doorashadii middan ka horreysay ee 2016. kuraasta aqalka hoose matalaadooda ayaa ku dhisan awood qaybsiga qabaa'ilka 4.5 ama 4.5. Somaliland 46 xildhibaan, Puntland waxaa laga soo doortaa 37 xildhibaan, Galmudug 37 xildhibaan, Hirshabelle Banaadir 5 xildhibaan, Koonfur Galbeed 69 xildhibaan, Jubbaland 43 xildhibaan. xildhibaanadii iyo senataradii la soo wada doortay ayaa isugu yimi Muqdisho, waxaana lagu qabtay hoggaanada labada aqal doorashadooda. doorashadii guddoonka aqalka sare waxaa ku guulaystay oo mar labaad ku soo laabtay Cabdi Xaashi Cabdilaahi. maalin kadib ayaa iyadana la qabtay doorashadii aqalka hoose. doorasho ilaa habeen xilli dambe ah gaartay ayaa ugu dambeyntii lagu doortay guddoonkii baarlamaanka, waxaana ku guulaystay Sheekh Aadan Madoobe oo horay u soo noqday guddoomiyihii golaha shacabka. waxaana xigi doona doorashada madaxweynaha ee Soomaaliya ee la rajaynayo inay dhacdo bisha May. dhowr musharax ayaana raadinaya una taagan xilka madaxtinimo ee sanadkan. musharaxiinta ugu cadcad xilka madaxweynenimo waxaa ka mid ah madaxweynayaal hore sida Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud, ra'iisul wasaarihii ugu muddada dheer Xasan Cali Khayre, madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Siciid Cabdullaahi Dani, Cabdikariin Xuseen Guuleed iyo hogaamiyaha xisbiga wadajir ahna musharaxa dagaalka mucaaradnimo ugu badan galay ee Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame. ammaanka, xasilinta siyaasadda, dhismaha hay'adaha dawliga ah, dhismaha ciidanka, dhammaystirka dastuurka, arrimaha gudaha, xiriirka dibadda iyo dhaqaalaha ayaa ah waxa laga sugayo madaxweynaha soo socda. maxaadse ku xulatay musharaxa aad kursiga la rabto? waa maxay shaqada ugu muhiimsan ee aad jeceshahay in madaxweynaha iman doona uu qabto? doorashada madaxweynaha saameyn taban ama mid togan ma ku leedahay nolol maalmeedkaada?